أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ما waxaa damcaysaan mu'miniinay inay idin rumeeyaan gaalada ayagoo ahaa koox ka mid ah kuwa dhageysta Ilaahay hadalkiisa ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون كدبنا leexinayay markay fahmeen gadaashiisa ayagoo og وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا markay la kulmaan kuwa xaq rumeeyay waxay leeyihiin munaafiqiinta waan qaadanay iimaanka وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم markay la gooni noqdaan qaarkood qaarka kale waxay leeyihiin ma waxaad ugu sheekaynaysan mu'miniinta wuxuu Ilaahay furay dushiina ليحاجوكم به عند ربكم si ay idinka garhelaan rabbigooda agtiisa afala ta'qiluun miyaydan aqli lahayn awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun miyaysan ogeen munaafiqiinta Ilaahay inuu og yahay waxay qarsanayaan iyo waxay muujisanayaan ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون waxaa ka mid ah yahuuda kuwa aan garanaynin kitaabka tawraad ilaa yadadiile mooye mana ahaanin ayagu ilaa kuwa mala abaalay mooye فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا waadinaareed ayaa u sugnaaday kuwa qoray kitaabka gacantooda intaas kadib dhahayo kani wuxuu ka ahaaday Ilaahay agtiisa si ay ugu iibiyaan lacag yar fawaylun lahum mimma katabat aydihim wa waylun lahum mimma yaksibun waadinaareed ayaa u sugnaaday ayagu waxay gacantooda ku qoreen sababtii waadinaareed ayaa u sugnaaday ayagu waxay kasbadeen xaqii وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة waxay dhaheen yahuuda anaga na taaban mayso naar ilaa maalmo la tiriyay mooye qul attakhadtum 'inda allahi 'ahdan falan yukhlifa allahu 'ahdahu waxaad ku tiraahdaa naw maxmedow miyaad samaysateen Ilaahay agtiisa ballan oo Ilaahay markaas kama baxee ballankiisa am taquluna 'ala allahi ma la ta'lamun mise waxaad leedihiin Ilaahay dushiisa waxaydan garanaynin bala man kasaba sayyi'atan wa ahaatat bihi khati'atuhu فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون iska dhaafee ciddii shaqaysato xumaan oo markaas ay xareerayso xumaantiisa kuwaas waa naarta dadkeeda wayna ku waarayaan والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون kuwa rumeeyay xaqa oo haddana sameeyay amal wanaagsan kuwaas waa jannada dadkeeda wayna ku waarayaan
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا waqti ka sheekay aan ka qaadnay Israa'iil caruurtiisa ballankii la adkeeyay inaysan caabudaynin alla mooyee iyo inay u sameynayaan waalidiinta wanaag iyo kan qaraabtinimada u saaxiib ah iyo kan agoonka ah iyo kan maskiinka ah وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون iyo inay ku dhahayaan dadka hadal wanaagsan iyo inaad toosinaysaan salaada zakadana aad bixinaysaan intaas kadib waa jeesateen ilaa wax yar oo idinka mid ah mooye idinkoo jeedsanayo وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم waqti xasuusta aan qaadnay ballankiina la adkeeyay inaydan daadinaynin dhiigagiina ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أيضاً كسارين نففيالكين قرياشين انتاس كدبوات قرتين إذن كو مرقاتئة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم intaas kadib idinku waa kuwaan waxaad dilaysaan nafafyaalkiina waxaadna ka saaraysaan qaar idinka mid ah guriyaashooda تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان waxaadna isku caawinaysaan dushooda dembe iyo cadowtanimo وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم hadday idin imaadaan ayagoo qafaal ah waad furanaysaan asigoo la xaaraantanimeeyay dushiina bixintooda أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض miyaad rumaynaysaan kitaabka qaarkiisa oo aad ku gaaloobaysaan qaarka kale فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا muxuu yahay abaalkiisa qofka arrinkaas sameynaya oo idinka mid ah ilaa duleen mooye nolosha adduunya lagu duleeyo ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب maalinka qiyaamana waxaa loo celinayaa cadaabka kiisa ugu kulul وما الله بغافل عما تعملون mana moogana ilaahay waxaad samaynaysaan أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون kuwaas waa kuwa ku iibsaday nolosha adduunya aakhiro mana ahaanin kuwa laga khafiifiyo cadaabka mana loo gargaarayo ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل xaqiiqdii waxaan siinay muuse kitaab waxaana raacsiinay gadaashiisa rusul وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس waxaana siinay ciise ibnu maryam ahaa xujooyinkii cadcadaa waxaana ku xoojinay jibriil أفكلما جاء
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون markastoo idin la yimaado rasuul waxaydan jecleen nafafyaalkiina waad iskibrinaysaan waad beeniseen qaarkood waadna disheen qaarka kale وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون waxay dhaheen quluubteena waa mid xiran iska dhaafee ilaahay ayaa lacnaday gaalnimadooda sababtiisa wax yar xitaa ma rumaynayaan ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم markuu ula yimaaday naw maxmed kitaab oo ilaahay agtiisa ka ahaaday kaasoo u run sheegayo kitaabka la jirinkooda ahaaday وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا waxayna ahaayeen horaan kuwa u gargaar dalbada kuwa gaaloobay dushooda فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به markuu ula yimaaday waxay garteen way ku gaalooween لعنة الله على الكافرين naclada ilaahay ha ahaato kuwa gaaloobay dushooda بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله waxaa baas lahaaday waxay u iibiyeen nafafyaalkooda inay ku gaalooween wixii ilaahay soo dejiyey gardaro daraaddeed أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده inuu ku soo dejiyey ilaahay dheeraasiintiisa cidduu doono oo addoommadiisa ka mid ah فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين waxay la laabteen caro oo caro dusheeda ahaatay waxaana u sugnaaday gaalada cadaab dulleeya وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا markii lagu yiraahdo rumeeya waxa ilaahay soo dejiyey waxay leeyihiin waxaan rumaynaynaa wixii dusheena lagu soo dejiyey ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم waxayna ku gaaloobayaan kan gadaashiisa la soo dejiyey asigoo xaq ah oo u run sheegayo waxa la jirinkooda ahaaday قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين waxaad ku tiraahdaa naw maxmedow maxaad u dilayseen ambiyada ilaahay horaan haddaad tihiin kuwa rumaynaayo